dhiirigelintu waa sida cunto maskaxda la siiyo oo kale. Kagama dhargaysid hal fadhi ee waa inaad ku soo noqnoqodka badisaa. Dhiirigelintu waa dhaqaajiyaha naftaada waxayna sababtaa inuu qofku qabto hawl heerkeeda aad u sarreeyo, gaadhsiiyana natiijo aad u weyn. Waa furaha keena sidoo kale inuu qofku gaaro guul. Ogsoonow, gaarigu ma socdo bilaa shidaal. Dadkuna waa sidoo kale ma gaaraan ilaa ay helaan dhaqaajin amase dhiirigelin. Haddaba dhaqaajiyaha nafeed waxaad ku heli kartaa adiga oo naftaada tusa aragti fiican. Sidaa ayaad ku helin kartaa dhiirigelin. Dhiirigelinta waxaa ka mid ah inay dadku ku dhiirigeliyaan iyo inuu waalidka adiga kugu dhalay kugu dhiirigeliyo hankaaga iyo himiladaada, ama inaad adigu naftaada isku dhiirigeliso wanaagga. Qofka bini'aadamka ah haddii uu helo dhiirigelin iyo daryeel joogto ah, waxaa shaki uusan ku jirin inuu nolosha ku guulaysan karo, sidoo kale uu ku noolaan karo farxad. Haddaba isweydii labadan su'aalood: sideed isku dhiirigelin kartaa iyo sideed ku helin kartaa dhiirigelin joogto ah? Jawaab: haa, waad isdhiirigelin kartaa adigoo adeegsanaya qodobadan. Naftaada ka faa'iidayso. Waraaqad ku qoro waxyaabaha ku dhiirigelinaya. Dhagayso muxaadarooyin ku dhiirigelinaya ama horey kuu socodsiin. Aragti fog yeelo yool iyo hadaf. Naftaada adigu dhiirigeli adigoo adeegsanaya hadallo dhiirigelin ah, kuna dheh waad guulaysan kartaa iyo wixii la mid ah. Waxaan kula wadaagayaa erayo aad adigu isku dhiirigelin karto, kuwaas oo aan anigu kuu soo diyaariyey. Waad guulaysan kartaa. Ha cabsan. Waad kartaa. Waad baran kartaa. Way fududahay. Hormuud ayaa tahay. Waad ka soo bixi kartaa. Waad samayn kartaa. Hore u soco. Karti ayaad leedahay. Way dhibtay. Adkayso. Waxaan kuu rajaynayaa inaad noqoto mid ku guulaysta nolosha idilkeed. Waadna mahadsantahay qadarka daawashada fiidiyowga kan.